wafdigani ka socda qaramada midoobay ee maanta soo gaaray magaalada Cadaado ayaa waxaa magaalada ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. Wafdiga ayaa kulamo saacado qaata la yeeshay golaha fulinta dowlad goboleedka Galmudug iyagoona ka wada hadlay xoojinta taageerada qaramada midoobay ay siiso Galmudug. Sidoo kale wafdiga qaramada midoobay ayaa kulamo la qaatay xubno ka tirsan golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybo kamid ah ururada bulshada. George Kawin oo ah madaxa ugu sareeya xafiiska UNDP Soomaaliya oo ugu horeyn la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in imaatinka Galmudug uu yahay muhiimad gooni ah isla markaana ay taageero siin doonaan dowlad goboleedka Galmudug. We're on a visit here today with the state government of Galmudug for discussions around the support from UNDP and from the United Nations more generally to build the capacity of state government structures and local government structures both within the government and within the state assembly to fulfill their mandated functions. This is my first trip to Cadaado. We've received a very, very warm welcome from the state government and from colleagues here. We're very pleased to have the opportunity to be here in person. It's been an important opportunity for us to hear from the state and local government officials about the issues and the challenges that the state is facing and the support that they expect from the international community. It's also been a pleasure to hear very good progress that's being made in the state. Maxamed Xaashi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug oo dhankiisa la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in ay kala hadleen wafdigan horumarinta dowlad goboleedka Galmudug isagoona sheegay arrimo badan ay isku fahmeen. Wafdigan ka socda UNDP iyo dhammaan UN todan kaas oo Cadaado maanta u imaaday in ama strategic development Galmudug oo UNDP waxaa weeye hay'ad oo si fiican loola shaqeysay wax badan nala qabatay runtii oo hore noola qabatay hadda nala qaban doonto hadday noqon lahayd xagga arrimaha heshiisiinta hadday noqon lahayd xagga arrimaha state buildingka iyo dhammaan arrimaha kala duwan oo dhan oo ku saabsan state informationka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Mr. George Atul iyo Moko oo runtii saddexdooduba nagu soo booqday halkan muddo dheerna ka soo shaqeynaya Galmudug dhismaheedii ilaa iyo intii aan maamulka la dooran ka hor iyo intii la doortay runtii waqti badan iyo caqli badan iyo dhaqaale badan la geliyay waxaan leenahay thank you. Maxamed Maxamuud Aadan TV-ga caalamiga Universal Muqdisho.